Salaamu calaykum YouTube dadkan jeclahay waa idin jeclahay si aad iyo aad idin jeclahay 440 qof ayaa hadda subscribe ii ah each one of you waxaan idiin soo diraya wallaahi salaan kaliya laaba dad support ay tihiin oo supportkayga aad tihiin mahad weyn idinka celinaya taas maxay tahay maanta waxaa soo galay videoga inta badan videoyo waxaan soo galiyaa maxay tahay shorts ah iyo waxaas laakiin maanta videogan waxaa soo gelinayaa inaan idin sheego inaan mahadsan tihiin inaan idin jeclahay inaan idinka mahad celiyo supportka ay support garaysiin maaragtay de waa kaas saasaan idinku soo galay maanta laakiin insha allah waa idin soo gelin doonaa videoyo oo sidan oo kale haddii ilaah yiraahdo maxay tahay midda kaleeto wallahi waxaan idin lahaa stay safe guys waa maqasheen aan u maleeyay lawmakerska oo Minnesota hadda waxa ka jiro oo maxay tahay laba lawmakers ah oo maxay tahay dimuqraadiga in nin oo booliis dharkiisa wata uu u soo galay guriga soo garaacay so waxaa idin dhihi lahaa oo iyagii iyo dumarkoodiiba maxay tahay ku sameeyeen ama ninkoodii dumarkoodii significant other maaragtay ay ku sameeyeen in ay dilaan basically but naagta oo ay targetka u ahayd iyo ninkeeda labadaas way dhinteen ninka kale iyo naagtiisana maasha allah survivor ay noqdeen ayagaa marka sheegay ninka gaarigu watay noocu yahay meesha waxa uu watay ninka alxamdulillah ninka waa la helay laakiin markii la helay gaarigii waxa ku jiro informationada waxa ku haystay kuwa badan ayaa kusii daba taxanaa oo inuu dilo uu rabay ninkaasi so horta waa la helay ninkii waa la xiray maxay tahay I think national security miyuu shaqayn jiray hadda ka hor wax saas oo kale laakiin anyway guryihiina ha furinina booliis xataa mid wato dresskiisi waxaas badgeena idin tusaan waaye not only badgeena idin tusaan waa inay laba ahaadaan mid qura horta maba loo furi karaba ma fahansantahay hadday laba yihiin waa u furi kartaa ay badgeka ku tusaan laakiin haddii ay yihiin mid qura ha u furin badge waxna ha samaynin laakiin adduunyadan way waalatay wallahi alcadiim guys be safe maxay tahay ilmahan ilaaha noo ilaaliyo wax kale oo sheeko kale aan ka xumaaday waxay ahayd oo ilaa xad itaabatay waxay ahayd ilmaha yaryar oo maaragtay Minnesota ah I think meel oo school miya graduation iyo waxaas lagu sameynayay graduationkii wixii marka la sameynayay somehow shooting ayaa ka dhacay rasaasid ayaa ka dhacday rasaasidkii 4 wiil oo maxay tahay Soomaali ah oo 18 jir loo soo qabtay taas xanuun weyn waay guys xanuun weyn waay wallahi marka waxaan jeclaan lahaa aniga waalidiinta inay ilmaha la sheekaystaan waalidiinta inay ilmahooda maaragtay educationkooda ay ku dadaalaan waalidiinta inay maaragtay waxa isku dayi karaan oo kale isku dayaan ilmaha soo dhaweysan karaan ilmaha yaan la eryin ilmaha yaan lagu qaylinin ilmaha maaragtay hala soo dhaweysto hala maxay tahay jacayl hala tuso wanaag hala tuso waxaan hadda soconayso wallahi waa wareer guys wallahi insha allah maaragtay waa u ducaynaynaa waxa dadka oo waalidiinta waxaan soo gaadheen because I don't think dhimasho inay jirtay meeshaas laakiin rasaasid iyo ilmaha 4 wiil oo hooyooyinkooda iyo aabahood maogtahay maanta yaa og waxay ku sugan yihiin wallahi madax xanuun waaye soo dadka inaan u ducayno wallahi wax weyn weeyaan ila tahay aniga anyway guys stay safe and then video waxaa soo galay waxay ahayd to let you know wallahi inay dhaho safe ahaada insha allah ilaahay na ilaalinaya ma ogtahay ilaahay inaan isku xidhno iyo maxay tahay inaan idinka mahad celiyo intaas oo maaragtay qof oo ifolo garaynayso and then igaarsiya dadkayga Soomaalida waan jeclahay igaarsiya maxay tahay kunka okay insha allah business ayaan haystaa businesskayga ayaan rabaa inaan linkigiisa soo geliyo waxaas oo maaragtay
aan ka hadlo more businesskayga waxaas insha allah iyo normalkayga maaragtay day to day the stuffka maaragtay isoo maaragtay support garayaan dhihi lahaa waan idin jeclahay love you guys and galab wanaagsan galab ay tahay aniga so galab wanaagsan guys yeah waa inoo iyo kulan kale insha allah okay bye